golaha wakiilada ee Somaliland ayaa dib u dhigay 2 maalmood xeerka doorashooyinka qaranka ee Somaliland waxaana dhanka kale u magacaabeen 11 xubnood sida warbixintan uu noogu soo diyaariyay Xamse Dabaare. kalfadhigan ay maanta yeesheen golaha wakiilada Somaliland ayaa lagu ansixinayay xeerka doorashooyinka qaranka iyo codbixiyaasha kaasi oo muran dhaliyay waqtigii ugu dambeysay. hase yeeshee xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta codsaday in dib loo dhigo ku dhawaad 2 maalmood sabab la xiriira tabashooyin ay qabaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal. xildhibaan Cumar Sanweyn iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo ay soo wakiisheen ayaa golaha wakiilada Somaliland ka soo horjeediyay in la tabasho tiro xildhibaanadaasi. xildhibaanada soo wakiishay waxaan soo jeedinaynaa maadaama xildhibaano walaalaheena ay inaga maqan yihiin taladooda leenahay oo gobollo matila xildhibaanku markiisa horeba dee gobollo uu matalaa ummadana uu masilaa marka mar haddii inaga maqan yihiin xildhibaano fara badan si kasta waa ku maqnaadeen anigu garnaa ma naqayo oo waa soo jeedin in aynu xeerkan 2 casho dib u dhigno oo dabeetana waan ka codsanayo waliba gudoomiyaha in xildhibaanadii loo yeedho aynu hoos isaga xidhanno oo aynu inagu wada hadallo. What is the problem? maxaynu qaban karnaa xaggee wax ka qalloocdeen xaggee wax ka xun yihiin sidaynu u hagaajinaa saddexdaas su'aalood aynu isweydiino. marka waxaan soo jeedinayaa in arrinkaa ay ugu ogolaataan 2 casho. waa mahadsantihiin. dalabkooda ma jirto wixii xaq ay u leeyihiin waynu sheegi wixii kale dheeraadana waynu sheegi sidaa awadeed waa inagu karaamo darro waa inagu sharaf darro in aynu iyagoo halkaa banaanka jooga wadanka isu tagay ee ka samaysan gobolada iyo degmooyinka ka samaysan iyaguba waa ka samaysan xaqna waynu leeyihiin xaqna waynu isku leenahay. intaasi kadib waxaa loo saaray guddi ka kooban 11 xildhibaan waxaan u saaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan le doona 2 cishana waynu siinayna mudane Cabdilcasiis Ismaaciil Ducaale mudane Cumar Axmed Saleebaan mudane Saciid Cilmi Rooble mudane Maxamuud Xaaji Jaamac Cilmi Dable mudane Ibraahim Mahdi Buubaa mudane Xuseen Ismaaciil Yuusuf mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde mudane Xuseen Cabdilaahi Cige mudane Axmed Ducaale Bulaale mudane Xuseen Axmed Caydiid mudane Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Waabey 11 xildhibaan ayaynu u diraynaa ragga inaga maqan 2 cishana waynu siinaynaa talasan oo qaranka anfacdana waynu soo saari doonaa fadhiguna waynu xidhan yahay. Xamse Dabaare, RTN TV, Hargeysa.